barnaamijkeena diinta iyo dunida waxaanu ku bilaabanaynaa magaca eebbaweyne nabad iyo naxariisna ha ahaato suubanaha korkiisa. barnaamijka diinta iyo dunida waa xalaqadiisii saddexaad. maanta waxaan ku iftiiminaynaa diinta iyo dowlad wanaagga. aadanuhu sidiisuba waa madani dhaqan ahaantiisa, siduu sheegayba ibnu khalduun kitaabkiisii muqadimada ibnu khalduun oo caanka ahayd, al-insaanu madaniyun bitabcihi. qofka biniaadanka kama maarmo biniaadanka kale, wuu la tacaamulaa, wuu la noolaadaa, wuu ka guursadaa, wuu la dhaqmaa, wuu la darsaa. sidaa darteed biniaadanku waxay u baahan yihiin mar walba nidaam iyo qaab maamul ay masaalixdoodana ku gaaraan, danahoodana u xaqiijiya, ayaga dhexdooda wixii dhex dhaco khilaafaad iyo ismaandhaafna xalliya. aadanuhu wuxuu soo maray 3 casri markii taariikh ahaan la fiiriyo, casrigii qadiimka ahaa iyo cusuurtii dhexe iyo casrigan hadda xadiidka ah oo aan noolnahay. casri kastaba qaab maamul ama nidaam uu isku maamulayo waa uu jiray, ha soo koro oo ha hormaro oo marba heer ha soo gaaro ilaa hadda qaabka aan hadda u noolnahay ee biniaadanku isku maamulaan. waayadii hore marka nidaamka isku maamuli jireen dowlad magacaas lama oran jirin, laakiin waxaa jiri jiray nidaam qabiileed. kadib wuxuu isku bedelay imaaro, waxaa loo yaqaano saldanad, waxaa loo yaqaano boqortooyo, ilaa marka dambe aadanuhu uu gaaray imbaratoriyad. imbaratoriyadu waa imaarado isku tagtagay, imbaratoriyad sameeye, sida imbaratoriyadii romaanka oo kale, imbaratoriyadii jaynaha, tii jabaanka, tii maaragtay boqortooyadii hindida. insha allahu tacaala maanta xalaqadeena 2 dhacdo oo waaweyn baan ku iftiiminaynaa. dhacdada koowaad waa dhacdadii nabiga sal alla alay slam markuu aasaasay dowladda islaamka, oo aan ku faahfaahinayno islaamka aragtida uu ka qabo dowlad wanaagga. xadadka labaad ama dhacdada labaad waa dhacdadii shirkii westphalia oo dhacay 1648. dowladaha yurubiyankana ay kusoo afmeereen dagaalo diini ahaa oo socday ilaa iyo 30 sano meelaha. kadibna wuu soo baxay nidaamkan hadda loo yaqaano dowladda. labadaas dhacdaan insha allahu tacaala dul istaagaynaa. kadibna waxaan sheegaynaa dowlad wanaagga waxa loo yaqaano iyo waxa dowladda laga filaayo inay samayso. waxaan ku bilaabaynaa qeexitaanka dowlad. maxaa dowlad la yiraahdaa? maxaa lagu tacriifiyaa? muxuu yahay dowladda definitionkeeda? dowladda waxaa qeexa oo horena u qeexay muasasaadka caalamiga ah ama institutionaadka dawliga ah ama hay-adaha caalamiga ah. waxay u sameeyeen qeexitaan kala duwan, mid walbana wuxuu ku salaysan yahay aragti iyo ideolojiyo kala duwan. dowladdu waxaa laga siman yahay qeexitaankaas tirada badan markaa fiirisid inay 3 wax ka koobanto. waa shacab joogto ah, iyo dhul xadkiisa la yaqaan, iyo nidaam siyaasadeed ee isku maamulaan. 3daa marka meeshii laga helo dowlad, intaasaa la yidhahdaa. dowladdu waxay leedahay 3 hay-adood oo waaweyn. hay-ad waxaa la yidhahdaa hay-adda fulinta, midna waxaa la yidhahdaa sharci dejinta, midna waxaa la yidhaahdaa garsoorka ama xeer ilaalinta. 3daas hay-adood waaweyn bay dowladaha mucaasirka u qaybsamaan. 3doodaas waxaa isku haya oo ilaaliya oo kala sooca oo awoodahooda caddeeya waxaa loo yaqaano dastuur ama constitution. dowladaha marka wanaagsan oo hormara waa dowladaha madax bannaan, xuquuqda shacabkoodana ilaaliya, kana shaqeeya masaalixda guud oo shacabkooda uu leeyahay, shacabkoodana u ilaaliya ixtiraamkooda iyo karaamadooda, nabadgelyadoodana ka shaqeeya, istiqraarkooda iyo xasiloonidooda iyo horumarkoodana ka shaqeeya, u taagan mar walba. dowladuhu marka waxay maraan 3 heerar siduu ibnu khalduun uu sheegay. heerka koowaad waa markay dowladda dhalato oo dhalinyarta ay tahay. heerka labaad waa heerka ay dowladuhu bislaadaan oo ay xasilooni iyo istiqraar gaaraan. heerka saddexaadna waa markay dowladuhu gaboobaan oo haram ay noqdaan ama shaykhuuqa uu ku dhaco ay weynaadaan. marka dowladuhu dhismaan oo ay cusub yihiin oo dhashaan oo dhalinyarta ay yihiin, waxay leeyihiin tilmaamooyin lagu yaqaan. markay xasiloonida gaaraanna waxay leeyihiin tilmaamooyin lagu yaqaan.
markay dowladdu ay sii tabar dhigto oo daciif noqoto oo ay gabowdana waxay leedahay tilmaamooyin lagu yaqaan. dowlado waxaa jira markay gaboobaan soo karaara qaata oo ku soo noqda xilligii dhallinyarnimada iyo xasiloonida iyo istiqraarka oo sidaa kusii socda. kuwana way burburaan oo way kala jajabaan. markay dowladuhu ay dhashaan ama ay weli dhallinyarnimada ku jiraan oo ay yar yihiin, waxaa lagu yaqaanaa inay dowladaha noocaasa ku mashquulaan shu'uunta daakhligooda ah, inay ka shaqeeyaan horumarka gudaha ah, in waxaa lagu yaqaanaa ay hormariyaan resourcigooda iyo khayraadkooda, mawaaridda dabiiciga ah oo ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey si u horumarin lahaayeen. waxaa lagu yaqaanaa dowladaha daris kale ah daris wanaag inay kula dhaqmaan, mashaakilka u dhexeeyana mar walba ee wada hadal iyo nabadgelyo ay ku dhameeyaan. waxaan qaadanaynaa marka hordhaca koobaad oo ah mid taariikhda aadanaha wax badan ka bedelay, waana markii nabiga sala allahu alay wasalam oo dowladda islaamka u asaasay. suubanaha sala allahu alayh wasalam dowladda islaamka wuxuu aasaasay markuu usoo hijrooday madiino, wuxuuna ku bilaabay 2 heshiis intuusan soo hijroonin oo loo yaqaano heshiiska koobaad baycadii caqaba ee 1, heshiiska labaadna waa baycadii caqaba 2. labadaasba nabiga sal lla ly slam wuxuu la heshiiyey dadkii madiino deganaa oo muslimiinta ahaa, markii dambena loo bixiyey ansaar, inuu nabiga sal lla ly slam usoo guuro madiino, saxaabadii maka deganeed ee madiino usoo guuraan, halkaana lagu aasaaso dowladda islaamka aheyd, ayagana ay difaacaan, magangelyan ay siiyaan. suubanuhu sal lla ly slam markuu usoo hijrooday madiino wuxuu dhidibada u aasay dowladda islaamka, wuxuuna qaaday tilaabooyin caddaynaya inuu nabiga sal lla ly slam dowladda islaamka uu dhisay. markii koowaad nabiga sal lla ly slam wuxuu dhisay masaajidkiisa, markii dambena noqday santar ama markaz laga maamulo dowladda islaamka oo lagu shiro, oo arrimaha dhaqaalaha lagaga hadlo, arrimaha dagaalka lagaga hadlo, arrimaha bulshada lagaga hadlo, horumarintii madiino lagaga hadlo. masaajidka wuxuu u ahaa meelaha hadda dowladaha laga maamulo. nabiga sal alla alay slam wuxuu qaaday tilaabo ah inuu walaaleeyey muhaajiriintii ka yimid maka oo ka soo guuray guryahoodii iyo dhaqaalahoodii iyo reerahoodiiba ayagoo faramaran magaalada madiine yimid, iyo shacabkii ansaarta ah oo magaalada deegaanka u ahaa oo dhaqaalaha lahaa oo hantida lahaa. labalabuu nabiga sal alla alay slam u walaaleeyey. alla wuxuu kaga sheekeeyey suurat lxashri lilfuqaraa'i almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim, iyo aayadda ku xigtay oo ah waladiina tabawa'u daara waliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaaja. tilaabada saddexaad nabiga sal alla alay wasalam wuxuu sameeyey dastuur ama waxa loo yaqaano constitution, ama waagi hore waxaa la dhihi jiray wathiiqa, oo nabiga sal alla alay wasalam uu ku qoray xuquuqda iyo waajibaadka dadka deegaanka madiine deganaa. constitutionka iyo heerarka uu soo maray xalaqada dambaan insha allahu tacaala ku iftiimin doonaa, ayada insha allahu tacaala kala socda. laakiin dastuurkan wuxuu ahaa dastuurkii ugu horeeyey aadanaha soo mara ee la qoray oo qodobaysan oo cutubyo leh. taana dadka mu'arikhiinta iyo ahlu siyarka way isku raacsan yihiin. suubanaha sala allahu alay wasalam dastuurkaas markuu dejiyey wuxuu ku saleeyey dowladda muslimiinta ah oo ummad loo bixiyey umma. ummadihii hore waxay u degnaan jireen oo dowladoodu ahaan jireen dowlad diin keliya salka ku haysa ama qabiil ama qowmiyad keliya ay leeyihiin. dowladda islaamka waxay ahayd dowlad labadaas mafhuumba aanan ku salaysnayn, juqraafi iyo dhul bay ku salaysnayd, sida hadda mafhuumka mucaasirka oo loo yaqaano dowladaha markii ugu horreysay oo la bilaabay bay ahayd. islaamkana midaas waa miduu ku leeyahay ixtiraam iyo in lagu ammaano. dadka muslimiintana waxaa qurux badan iyo arrimaha noocaas ay ogaadaan. nabiga sal lla ly slam constitutionka markuu dejiyey, madiine waxaa deganaa dad caraba iyo dad aan carab ahayn oo yuhuud ah, waxaa deganaa dad muslimiina iyo dad yuhuud ah iyo dad kirishtan ah. ummada marka waxaa weeye kala diin ah, kala cirqi ah, kala qowmiyaad duwan. intaba nabiga sal lla ly slam wuxuu ku mideeyey dowladdii madiino, dastuurkaasaana kala saaraya. dastuurka wuxuu ka kooban yahay 52 cutub. nabigana sal alla alay slam wuxuu ku caddeeyey inay dadka madiino degan ay yihiin ummatun min duuni nnaas, dad waxaa weeye dadka kale iskaga dhow. kadibna nabiga sal ly slam wuxuu ku caddeeyey xuquuqda iyo waajibaadka saaran dadka madiine degan, ha ahaadaan muslimiin, ha ahaadaan kiristan, ha ahaadaan yahuud, inay wada difaacdaan magaalada madiino, inay wada bixiyaan dhaqaalaha ku baxaya, inay ka wada shaqeeyaan horumarka magaalada madiino. nabigana sal ly slam wuxuu yihi lilyahuudi diinuhum walilmuslimiina diinuhum,
yuhuudda waxay leeyihiin diintooda cidna ku faragelin mayso, muslimiintana waxay leeyihiin diintooda cidna ku faragelin mayso, laakiin waxaa naga dhexeeya magaalada Madiino iyo dowladnimadeeda iyo ka wada shaqaynta masaalixdeeda. nabiga sallallahu alayhi wasallam diinta markuu u dhisay dowladdaas uu sameeyay islaamka ah waxay lahayd wasiiro, waxay lahayd maaragtay umara. nabiga sallallahu alayhi wasallam dagaaladu maaragtay oogi jiray, maxkamadu dadka maaragtay qadaa'i u sameyn jiray, dadku u fatwoon jiray. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu diyaariyay ummad, saxaabu diyaariyay. nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu ka geeriyoodana dowladda islaamka hormariyay, adduunka daafihiisna islaamka gaarsiiyay. waana xadaaradda islaamka oo soo jirta ilaa iyo 1400 sano intii laga soo gaarayay khilaafada Uthmaaniyada oo dhamaatay 1924. dhacdada labaad waa dhacdada loo yaqaano West Valley oo dhacay 1648 markii dowladaha Yurubiyaanka ah ay islaayeen dagaal socday ilaa 100 sano, laakiin 30 sano ugu dambeeyay 1618 ilaa 1648 ahaa dagaal ba'an oo ay isku dirirayeen madhab iyo diin ay isku leynayeen. markay isbaabi'iyeen bay waxay ku heshiiyeen inay shir nabadeed sameeyaan. shirkaana wixii ka soo baxo lagu heshiiyay ay ku dhaqmaan. shirka waxa ka soo baxay mabaadi iyo qodobo waaweyn. waxa ugu horeeyay dowladuhu inay madax banaani helaan, waxa ku xigay in dowladuhu ay xuduudo yeeshaan, waxa ku xigay dowladuhu inay siman yihiin, kuwooda yaryar iyo kuwooda waaweyn, kuwa awoodda dhaqaalaha leh, kuwa awoodda dhaqaalahooda yar yahay, kuwa militariga xoogan leh, kuwa aan militariga badan inay sinaadaan. waxa ka soo baxay waxa loo yaqaan qaanuunkan dawliga ah ama universal law-ga ama international law-ga waxa loo yaqaan markaas uu asaasmay. markay Yurubiyaankaas mu'tamarka noocaas qaateen oo ay ku heshiiyeen inay dowlado sameystaan, xuduudo sameystaan, ismagan galiyaan, dowladaha ay sinaadaan, qaanuun dawli ah la sameeyay. islaamku wuxuu lahaa xadaarad, wuxuu lahaa dowlad soo jireena soo jirtay ilaa 1000 sano. khilaafada Uthmaaniyiinta ahayd waxaana caasimad u ahayd magaalada Istanbul ee hadda Turkiga ku taala. islaamka marka umuusan baahnayn aragtiyadan hadda nimankan Yurubiyaanka ay keeneen, waayo mafhuumka ay sameeyeen islaamku horu u soo sameeyay. laana islaamku wuxuu ahaa dowladda ugu horeysay ee kala socday saddexda hay'adood waaweyn. hay'adda tanfiidka way madax banaaneed, hay'adda garsoorkana way madax banaaneed, hay'adda sharci dejinta way madax banaaneed. wixii aad arinta noocaas u soo baxday xilligii Umar bin Khattab radiyallahu anhu uu khilaafada islaamka hayay. wuxuu sameeyay garsoor madax banaan, shariicada islaamkana sharci bay u ahayd, dowladii asaga uu hogaaminayana wuxuu ahaa fulintii bay ahayd. sidaas u kala cadeed. waa tii marka Umar bin Khattab iyo Abu Bakr radiyallahu anhum bay dhihi jireen atiicuuni wa atiica, inta Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan atiico shariicada islaamkana aan ku taagnahay. haddaan khaldamase itoosiya buu dhihi jiray Umar bin Khattab iyo Abu Bakr radiyallahu anhum. ilaa heer maalinta ma asoo Umar bin Khattab khudbad jumcaha jeedinaya markuu hadalka yiri saxaabada kamida uu yiri waxaan kugu toosinaynaa seefteena Umarow, hadal ma kugu toosinaynaa seef baan kugu toosinaynaa. markaas Umar bin Khattab aad ugu farxay arinta noocaasna wuxuu dareemay in dadka muslimiinta ay yihiin dad u soo jeeda inay dowladooda hagaajistaan, dowladooda muraaqabeeyaan, ilaaliyaan, la xisaabtamaan, aysan dadka dowladda markaa maamulaya aysan khaldamin, si khaldanna aysan u isticmaalin, musuqmaasuqna aysan gelin. dowladaha marka qaabkaasi u soo socdeen qarnigii ugu dambeeyay hadda qarnigii 20aad ahaa khariidada caalamka ilaa 3 jeer bay isbedeshay. dagaalkii koobaad adduunka ah markuu dhacay waa tii la sameeyay League of Nations waxa loo yaqaano ilaa 40 dowladood meelahaas ay ku heshiiyeen. dagaalkii labaad adduunka markuu dhacayna waa tii la sameeyay UN-ka ama United Nations-ka ama al-Umam al-Muttahida ama qaramada midoobay hadda wixii loo yaqaan ay ku heshiiyeen ilaa 50 dowladood wax ka badan. 1950 markii la gaarayna waa tii xorriyadoonkii iyo xorriyadii loo dagaalamay. dowlado badan oo cusubna caalamka ay ku soo darsameen, una badan Afrikada iyo Asia iyo Latin America u badnaa. ilaa haddeertaan UN-ka ama United Nations-ka ay hoos yimaadaan dowlado gaaraya 209 dowladood. dowladuhu marba isku darsamaan oo dowlad baa ka dhalata sidii tii Masar iyo Suuriya oo kale. marmarna dowladuhu way kala burburaan sida midowga Soviet oo kale ilaa 25 dowladood ay ka soo baxday. inaasba waxa way aadanuhu marba heer buu wuxuu gaarayaa aragtida uu ka qabo dowlad wanaaga iyo sidoo u horumarin lahaaba. dowlad wanaagu walaalayaal waa dowladda ka shaqeyso ilaalisa madax banaanideeda, waa dowladda mar walba ilaalisa masaalixda shacabkeeda,
waa dowladda mar walba ilaalisa xuquuqda iyo xorriyaadka bulshadeeda, waa dowladda saddexdeeda hay-adooda waaweynka ahba ay kala soocan yihiin, awoodahoodana ay kala cad yihiin, waa dowladaha leh constitution ka tarjumaya diinta shacabkeeda, ka tarjumaya dhaqanka shacabkeeda, ka tarjumaya taariikhda shacabkeeda. dowlad wanaaggu ma ahan dowladaha soo qaata ama soo amaahda dastuur ummado kale ay leeyihiin, dastuur lagu saleeyey dhaqamo kale, dastuur lagu saleeyey diiman kaleeto. dowladaha wanaagsan saddex wax baa laga fishaa. kow waxaa weeye dowladda wanaagsan waa dowladda damaan qaada ama ilaalisa jiritaankeeda. laba waxaa weeye dowladda damaano qaada ama ilaalisa xasiloonideeda. saddex waxaa weeye dowladda damaano qaada horumarkeeda iyo tanmiyada ummadeeda. dowladuhu waxay ku ilaaliyaan jiritaankooda waxaa weeye inay dowladda xuduudeeda ilaaliso, ciidan culusna ay leedahay, ictiraaf caalamka ahna laga aqoonsan yahay. dowladuhu waxay ay ilaaliyaan deganaanshaheeda iyo istiqraarkeeda iyo xasiloonideeda. waa laba wax hadday samayso, waa dowladda heshiis kula jirta bulshadeeda iyo goboladeeda iyo dadka hoos yimaada, heshiis dhexe ee isku waafaqsan yihiin, dastuurkana ku cad. waxay dowladdu xasilooni iyo nabadgelyo ay gaartaa marka dowladdu ay koforgarayso ama ay buuxiso ama ay daboosho baahida shacabkeeda ee daruuriga ah ama asaasiga ah. baahidaas oo ah nabad iyo cunto iyo cabitaan iyo caafimaad iyo isbitaallo iyo waxbarasho iyo xorriyaad iyo xuquuqda guud oo mujtamaca. qodobka saddexaad waxaa weeye dowladda ilaalisa ama damaano qaada bulshadeeda iyo horumarinteeda. taana dowladuhu waxay ku gaaraan laba qodob. markay dowladda la timaado mashaariic iyo aragtiyo waaweyn iyo fishan iyo mishino qoto dheer oo ay uga faa'iidaysanayso khayraadka ilaahay subxaana wa tacaala uu wadankeeda dhex dhigay, ha ahaadaan khayraad bad iyo mid maaragtay hawada ah iyo mid beeraha ah iyo mid intaasba kasii muhiimsan oo ah aadanaha dowladdaas markaas ay haysato. markii dowladuhu marka ay la yimaadaan aragtiyo iyo mashaariic waaweyn baa waxaa looga baahan yahay maalgelin inay ula timaado. haddii marka dowladdu ay ka soo baxdo inay ilaaliso jiritaankeeda, inay ilaaliso xasiloonideeda, inay ilaaliso oo ay kor u qaado horumarinteeda, dowladaha noocaas waa dowlado la dhihi karo waa dowlad alla ilahay waajibaadkii laga lahaa ka soo baxday. dowladdu waxay wanaagsanaataa ay hormartaa mujtamac horumarsan markii la helo. dowladuhu waxay wanaagsanaadaan markii la helo bulsho wacyi leh. horaa waxaa loo yiri, waana mahmah ingiriisa, dadka siyaasiyiinta ah ama dadka xukaamta ah waxay xumaadaan inta mujtamacoodu u ogolaado inay xumaadaan. haddii mujtamacu uu yahay mujtamac soo jeeda, mujtamac yaqaana xuquuqdiisa, mujtamac ilaashan kara masaalixdiisa, mujtamac ilaalin kara dowladda iisa u shaqaynayso, mujtamac ka ilaalinayo dowladda inay musuq maasuq ku dhacdo, mujtamac ka ilaalinayo dowladda inay si khaldan u isticmaasho awoodeeda, mujtamac ilaalinayo dowladda in xoolaheeda iyo dhaqaalaheeda iyo hantideeda qaab khaldan ay u qaybiso. hadduu yahay mujtamac noocaas oo kaleeta ah, dowladduna waxay noqotaa dowlad wanaagsan. mujtamac marka waxaa loo baahan yahay, haddaanu nahay dad Soomaali ah, in awoodda ilaahay subxaana wa tacaala uuna siiyey aan u isticmaalno si saxsan. wa ilaa liqaa'in aakhar, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.